بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد daawadayaal walaalayaal meel walba aad joogtaan waxaa kusoo dhawaataan barnaamijkeenii cuntada iyo caafimaadka. barnaamijka cuntada iyo caafimaadka mar walba waxaan uga hadalnaa cashar aan isleeyahay dadkeenu in ay fahmaan aad bay ugu baahan yihiin. waa concept markaas haddii aad fahantid noloshaada xagga caafimaadka iyo cuntada iyo caafimaadka horay kugu wadi karta. marka insha Allah maanta waxaan rabaa in aan idinla wadaago quraacda, qadada iyo cashada in ay yihiin magacyo dadku ay la baxeen, laakiin jirkaaga xaqiiq ahaan uusan sidaas u shaqeynin. jirkaaga cuntada waxaa lagu tilmaamaa food is fuel baldaha. cuntada waa sida shidaalka oo kale. jirkaaga haddii aad gelisid shidaal qaldan, si qaldan ayuu u shaqeynayaa. gaariga aad wadatid haddii aad ku shubtid shidaal qaldan, ama waxa laga yaabaa gaarigaas inuu ka istaago, ama waxa laga yaabaa gaarigaas inuu ka qarxo. wayna dhacdaa. gaari petrol loogu talagalay haddaad diesel ku shubtid, gaarigaas waxaa waa jug weyn ba soo gaaraysa haddii xataa uu cusub yahay. jirkaaga si walba u fiican yahay haddii mataqaana ilmo yar aad tahay hadda soo koraay, haddii dhalinyaro aad tahay hadda soo koraay, haddii qof weyn aad tahay hadda soo koraay. waxaan rabaa tusaalahaas kaliya inaad qaadatid. cuntada inay kuu tahay sida shidaalka oo kale. marka shidaal qaldan haddii aad qaadatid, lafahaaga, murqahaaga, maskaxdaada, unugyadaada, caqligaaga, indhahaaga, wax walba si qaldan ayay u shaqeynayaan. hadhowtiin adigay kaa jaran tahay. waxa u tegaysaa dhakhtarka, dhakhtarkiina waxaa weeye isagana lacag ayuu kaa sameynaya. marka talada aan rabo inaan sii waxay tahay quraacda iyo qadada cashada inay tahay magacyo lala baxay, waqtiyo lagu aadiyey, qofkana loogu talagalay in schedule uu ku socdo ay noqoto. laakiin waxaan rabaa inaad cuntid markii gaajo ay ku qabato, markii gaarigaaga shidaalka uu ka dhammaado, markaas ayaa rabaa inaad cuntid cuntadaadii. marka waxaa laga yaabaa in aadan mataqaana u baahnaanin qadadii oo kale inaad cuntid. marka waad sugaysaa ilaa jirkaaga cuntadii ay ka baxdo, markaas kadib ayaad cunaysaa. in badan dadkeena waxay sameeyaan way quraacdaan, haddana qadadii 2 saac 3 saac iyadoon calooshoodii ay ka bixin, haddana qadadii cunaan, haddana qadadii waxay ugu xigtaa cashadii. marka sidaas hadaa ku wada jirkaaga uu dhamaanaya. marka waxaa loogu talagalay xanuuno badan baa laga yaabaa in calooshaada soo jiidato. marka isku soo duuduub, cuntada waxay sameynaysaa haddii aad waqti yar aad u dhaxaysid, waxaa laga yaabaa cuntadii in ay xanuunka u keento. waxaa laga yaabaa in weyl mataqaana uu ku soo saarmo ama culays jirkaaga uu soo saarmo. waxaa laga yaabaa waxaa weeye in aad hurdo badan ay ku dhacdo, aad shaqaysan weyso. marka waxaan kaa rabaa waxaa waaye markaad u baahan tahay kaliya cuntada inaad cuntid, jirkaaga cuntadii ka horeysay waqtigaas ayuu iska saaraya, waqti badan ayuu isa siinaya inuu iskilin gareeyo. waxaanay systemka jirkaaga ilaa u sameeyo waa system rabbaani ah oo isaga iskilin gareynaya, laakiin waqti inaad siisid waay. markii jirkaaga gaajo uu qabtana uu kuu soo sheegaya, uu kula hadlayo, wuxuu ku leeyahay waa gaajeysanahay, cuntaha la siiyo. marka waxaa lagaa rabaa adiga waxaa waaye in aadan ku soconin waqtiga dadku ay samaysteen ee quraacda iyo qadada iyo cashada unconventional way u fakartid. mataqaana fakarkaaga aad waxa weeye aad habeysid. marka sida saxsan oo loo fakaro cuntada loo cunan saas waa gaajo markay ku qabato inaad cuntid shidaalka markii uu soo shido gaariga, markaas lagu shubaa, marka kale laguma shubo. marka insha Allah casharkeena waxaan leenahay conceptiga aan ka hadlay maanta ee concept uu fiican uu yahay, loona baahan yahay dad badan inay fahmaan. ana arkay dad badan oo walaalaha kamid ah mar walba inay weydiiyaan ayna ku dhacayaan ayna sameynayaan. marka insha Allah casharkan walaalayaal waxaan rabaa inaad gaarsiisaan, inaad dadka la wadaagtaan, inaad ka faa'iideysataan. casharkan cashar ku xig intaas ka arkeen waxaan ka tagaysaa islaamka. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.